waxaan u leeyahay cagowna wuxuu idinku ballan qaadayaa kow cagowna siyaasadda ka baxay oo shaqadiisa soo celiyey lambar 2 adeeg 24 hours hadday farmasiga tahay hadday dhalmada tahay hadday heeganka tahay hadday shaybaarka tahay anu shaqadii waa 24 hours weeyaan maaha mid wax xilli dambe oo laga waayay ma jiri doonto talabaad waxaan idin ballan qaadayaa daacadnimo hufnaan qiimo dhibid iyo tabarruc waxaan kalan doonaya halkan aan ugu ballan qaaday dadka ay dhageysanaya inaan 5 cisho oo soo socda la qori doono dadka dayarta ah ee u baahan in la qalo ama rag ahaadaan ama dumar ahaadaan qaliinkaasoo lacag la'aan ah waxaan doonayaa maadaama in badan ka maqnaa qaliimadii in badan ka maqnaa shaqadii inaan sideedii balmartay aan dib isu active gareeyo dadkuna ay intii ku baaqatay ee aan ka maqnaa siyaasadda ku jiray inaan dadka ku soo celiyo wax markaa waxaan leeyahay soo dhawaada madiina maternity way idin furaya waxaan ka mid ahaa team ama koox samaynaysay sanadkii 2011 cilmi baadhis ku saabsan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxay soo mareen kooxihii xogta ururinayay 39 meelood 11 adeeg oo hay'adaha caalamiga ee caafimaadka qaabilsan adduunyada sida WHO UNFPA UNICEF ay isku raaceen bal la weydiinaya xarun kasta marka waxaan ku faraxsanahay marka 39kii meelood 15 meelood baan noqday inay fidin karaan emergency comprehensive emergency obstetric care service marka Madiina maternity hospital waxay ku jirtay 15 meelood ee Soomaaliland oo dhan ku yaala wasiirka aad baan ugu hambalyeeynaya in uu boorka dib uga jafo dhakhtarkan oo muhiim u ah iyo halbowle wasaaradda caafimaadka Madiina maternity hospital waa meel caan ku ah adeegyo wanaagsan waa meel bulshadu aad ugu maaragtay baraadhay laakiin wasaarad ahaan waxaan soo dhaweynaynaa dib u habaynta ballaaran ee lagu sameeyay hospitalkan oo jiray hospitalkani wuxuu ka mid yahay saan horeba u sheegay halbowlayaasha wasaaradda waxaa priority u ah ama mudnaanta koowaad u ah badbaadinta hooyada iyo ilmaha markaa Dr. Cagaweyne waxaan u rajaynayaa guul isaga iyo tiimkiisa wasaaraddu 100% bay idinla shaqaynaysaa diyaarna waan idin nahay inaan idinla shaqayno ilaahay ha ka dhigo meel wanaagsan